السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله aad baa idin salaamaya ilaahay waqtigiina ha idin barakeeyo meel walba aad caalamka joogtaan qof waliba naf waliba siday jeceshahayna ilaahay ha u yeelo maanta waxaan rabaa muuqaalkan inaan kaga faa'iidaysto muxaadaro yar shalay ani aan dhageystay ina soo xasuustay waxyaabo aad u weyn ah inaan walaalahayga Soomaaliyeed aan u soo gudbiyo ama khaasatan inta ku taxan YouTube-kayga Almuxsiniin iyo Facebook-kayga Maxmed Nuur run ahaantii adduunkan qof kaamil ah ma jiro ilaah baa kaamil ah qof kasta waxbaa ka maqan qof kastana waxbuu ka andacoonayaa qof shaqo la'aan ayaa hayso qof guurkii ayaa ka soo daahay qofna wuu guursaday ilaahay caruur ma siinin qofna ilaahay caruurtii ayaa uu rabaa inay ilaahay u islaaxiyo qof risqigii ayaa xiriiri ka ah qof muran iyo mashaakil ayaa ka haysta shaqadii qof muran iyo mashaakil ayaa kaga jira gurigiisa marka waxaan rabaa muuqaal intaasoo dhibaatooyin aan soo sheegay iyo kuwo kasii badanba aan uga bixi karno ama haddaan kuu sheego duco ama acmaal anaga aan samayno oo intaas iyo inka badan aan kaga badbaadi karno run ahaantii waxaan xasuustaa muddo hadda 5 sano ka hor clipkidii ugu horeeyay aniga aan soo dhigay ee ahayd oo aan soo dhigay dad badan ay ka faa'iideen aniga nafsadeyda aan ka faa'iiday kadib markii aan tajribo ku sameeyay ducooyin clipkaas iyo ducadii markaas aniga aan soo sheegay hoos linkiga hoos ayaan soo dhigi doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo waad arki doontaan balse maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago ma ka ishtikoonaysaa mashaakil maadiya yacni dhaqaale xumo ma ku haysaa shaqada xiriiri ma kaa tahay risqi ma raadinaysaa awlaad ma raadinaysaa adig iyo yacni cidda aad u shaqaynaysa mashaakil isku qabtiin oo muran iyo dood ma idin kala taagan tahay xataa nin haddaad tahay xaaskaaga adi mashaakil ma idinka dhexeeya gabaray adiga ninkaaga misfahmi laadihiin adiga caruurtii tabar muu laadahay hadalkaaga ma maqli laayihiin waxaan hayaa duco aad kaga baxayso intaasoo mashaakil oo dhan run ahaantii haddii aan aaminno ama aan samayno ama si saxa aan ugu dhaqanno waxaa waaye ilaahay subxaana wa tacaala muraadka iyo hadafka anaga aan leenahay wuu naga siin doonaa ducadaas intaan kuu sheegin ka hor waxaan rabaa mid kale waanaha inaan kuu sheego aan kugula taliyo dhammaanteena markii waxaa maqalno haddii la yidhaahdo ducadaas ayaa waxaas lagu helaa waxaan akhrinaynaa ducadii ayadoo carabkeena uu akhrinayo qalbigeena aysan ku jirin walolololo waa la bobsiinayaa khalaas way dhammaatay waxaan leeyahay muddo kadibna waxaa waaye wixii waa akhriyay maxaan u heli waaye la waxaa lagaa rabaa laba arrinaa lagaa rabaa أول شيء إناد أهاتو إناد لتماد اليقين أديك أد آمين سنتها بقول إنه حصرت إلهي أدوغو دوانيسو إلهي نمركاسي يعني دعاء هدف كسا كلا إنه إلهي كاسينا تنلبات وحلو بها قلبي جاجا أو جوجا إناد دعاء سآخرستو ما هذا مسلسل دابنا ما هذا لو شيكينا ما هذا شيكينا ما هذا وحيابك لو قولك لكم مشخوصا إناد يعني دعاء دي آخر أدهالين haddaba waxaa rabaa ducadaas inaan kuu sheego waa laba duco awal shay waxaa la imaanaysaa istiqfaarta waa naqaanaa qof kasta wuu yaqaana astaghfirullahi alcadiim wa atuubu ilayh ama ducada ah laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adaalimiin carabkaada ku daa'im laazim markastana akhri ha u fiirinin habeen ha u fiirinin maalin waqti allaale waqtiga ilaahay ka raali noqdo akhri ducadaasi ama istighfaarta badi rabbi subxaanahu wa tacaala wuu kuu gargaari doonaa ilaahay ayaan ku dhaartay haddii aad qalbi saxa la imaatid oo aad daa'intid ilaahay meeshii markaas mashaakilka uu kaa haysto wuu kaa fududayn doonaa ama wuu kaa wada qaadi doonaa dhammaantiis laakiin waxaa loo baahan yahay yaqiin qalbi saadiq ah inaad la imaatid oo adoo yaqiinsan inaad ducadaas akhrisid istighfaarta ilaahay qur'aankiisa meelal badan ayuu ku sheegay culmadana dhowr jeer ayay ka hadleen waa maqalnaa maalin kasta waa dhegaysanaa walwal ayaa kula soo darsay intaad qof kale u ishtikoon lahayd qof kale aad ordi lahayd istighfaarta badi adiga ninkaaga ayaa isku dhacdeen waa muranteen waa isfahmi weyseen istighfaarta badi caruurtii ayaa kugu caasi garoobay hadalkaaga ayay maqli waayeen istighfaarta badi shaqadii ayaa lagaa soo eriyay ama booskii mudiirkii aa u shaqaynaysa ayaa isdagaasheen istighfaarta badi gabaray guurka ayaad ka dahday istighfaarta badi wiilow waxaad guursatay ayaa laadahay ama qarashkii aad ku guursan lahayd ayaa laadahay istighfaarta badi aabi masaarifta ciyaalka ayaa kugu adkaatay istighfaarta badi run ahaantii istighfaarta haddii aan badino habeen iyo maalin haddaan istighfaarsano ilaahay waxyaabo badan ayuu noo fududaynayaa waana tajribo la soo sameeyey aniga ayaa ka mid ahaana arkay wax alaale waxay igu adkaadaan istighfaarta ayaa badiyaa markaasna ilaahay wuu ii yasiraa
adigna waxaan kaa codsanayaa ha walwalin stress kalena yuusan kugu dhicin maskaxdaadana ha mashquulinin adduunyo adiga aadan gaari karin ha isku mashquulinin adduunkan xukunkeeda ilaahay ayaa hayo ilaahayna wuxuu ku amray inaad istikfaar samaysid istikfaartana ilaahay wuxuu kugu samaynayaa awal shay dembi dhaaf ayaa helaysaa ilaahay ayaa kaa raali noqonaya ilaahay haddii kaa raali noqdona wax kasta ilaahay wuu ku siinayaa dadkana way ku jeclaanayaan ilaahayna wuu ku jeclaanayaa adduunyadaada dhan way ku fududaanaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu laakiin waxaan kaa codsanayaa muuqaalka intaadan demin ka hor inaad asxaabtaada u sheergaraysid wax dhib ay kuguma qaadanayso sirka sheerka taabo khalaas gaarsii asxaabtaada sadaqa jaarin ilaahay kaaga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu